asalaamu calaykum asxaabay kusoo dhawaada falanqaynta aflaanta ee ra'yi web t v maanta waxaan idiin wadaa filin dagaal cilmi nafsi ah oo la magac baxay mine. fadlan haddii aad nagu cusub tahay sabscribe saar, haddii aad muuqaalka ka heshana like saar. mahadsanid daawasho wacan. filimku wuxuu ku bilaabanayaa nin ka tirsan ciidamada badda oo la yidhaa Mike, misna airportka ku macsalaameynaya gacalisadiisa. wuxuuna ku socdaalay helikabtar si uu u gudagalo howlgalka loo diray. intaa kadib waxaynu aragnaa Mike oo weheliyo tilmaamihiisa Tommy oo dul jooga meel taag ah iyagoo indheendheen saxaraha misna sugaya ciddii bartilmaameedku u ahayd. Tommy waa nin dabiici ahaan u sheeko badan, halka Mike uu yahay nin aan hadal badnayn oo xirxiran. in yar kadib waxay arkeen dad badan oo meel hoose ka soo socda. dhinaca kale waxay arkeen gawaari hubaysan oo soo socota. bartilmaameedku waa 65 jir argagixisa ah oo la yidhaa Sayid Aasif. Tommy iyo ninkii raadiyaha kala hadlayay waxay u sheegeen inuu ku dhufto xabadda. Mike wuxuu gartay in ay dadku isugu yimaadeen arooska, bartilmaameedkuna yahay caruuska aabihii. arrinkii wuxuu bare ka male noqday markii ay lamaanayaashu isku gudbeen bartilmaameedkii. Mike waxaa la amray inuu dilo caruuska si uu u banaysto bartilmaameedka. Mike wuxuu ku dhiiran waayey inuu dilo qof aan waxba galabsan, wuxuuna been u sheegay taliyihii amray, isagoo yidhi diiradda ayay ka baxeen. labadoodii waxaa arkay ciidankii Aasif. waa la isxabadeeyey, bartilmaameedkiina wuu baxsaday. Mike iyo Tommyna dib ayay u gurteen maadaama weerar lagu soo qaaday. intii ay ordayeen waxaa ku xumaaday GPS-ka, jihada ayaana ka luntay. waxay ku dhunteen meel dhagax hoostiisa. raggii hubaysna ayaa dhankooda soo wajahay, balse Mike ayaa marin habaabiyey. dhan kale ayayna u dhaqaaqeen. Mike iyo saaxiibkii waxay u codsadeen in meesha laga saaro, balse waxaa loo sheegay in ay marka hore ka soo baxaan saxaraha oo ay soo gaaraan tuulo yar oo u jirto 5 saacadood. waxay bilaabeen socod. dhulka aad ayuu kulul yahay, dabaylena way u dheer tahay. Tommy wuxuu intaa ku madadaalin sheekada wiil yar oo u dhalay. markii uu arkay in Mike uu la xamuusan yahay arrimo jiro, wuxuu ku qasbay inuu xaaladiisa uga faalloodo. Mike wuxuu u sheegay inuu damacsan yahay guurka Jenny oo ah gacalisadiisa, balse ay u saamixi laadahay daruufahaysa nololeed. Tommy ayaa ku kaftamiyey inuu guurka ka baqi, wuxuuna siiyey talo isagoo u sheegay in marka hore ay adag tahay in guurka lagu dhiirado, balse marka la aqal galo lala kuusan xasilooni hor leh. intii ay dhaafayeen saxaraha, dabayl ayaa waxay ku soo tuurtay calaamad digniin ah, waxaana ku soo dhacday cagahooda hoostooda. Mike wuxuu calaamadii u aaminay si dhab ah. calaamadaas oo sheegaysay in 33 milyan oo miinada dhulka ah lagu aasay saxaraha 40kii sano ugu dambeeyey. Tommyna wuxuu u sheegay inay tani tahay xeelad ay dadka meesha degan u isticmaalayaan si ay iskaga fogeeyaan cadowga. Mike wuxuu galay taxaddar aad u badan, maskaxdiisana waxaa mashquulisay calaamadda digniinta ah. Tommy wuxuu bilaabay inuu dib u socdo isagoon taxaddarin. wuxuu Mike u jirsaday ilaa dhowr tallaabo, waxaanu tallaabooyin yaryar oo boodboodis ah ku hor sameeyey Mike, isagoo Mike u sheegayay inuu fikir aan jirin iska buuxinayo. si degdeg ahna waxay u maqleen cod taabasho ah, waxaana xigay qarax. Tommy wuxuu ku joogsaday miinadii dhulka. kadib markuu waxoogaa dhaga beeray, Mike wuxuu bilaabay inuu u dhaqaaqo xagga Tommy. waxaanu maqlay cod kale oo ay agtiisa ku dul istaagtay. naxdin buu la barafoobay. amuudii iyo boorkii ka dhashay qaruxuna wuu baaba'ay. Tommyna wuu badbaaday, balse cagihiisa wixii jilbaha ka hooseeyey way go'een. Tommy wuxuu la qaylinayay lana gariirayay xanuun. Mike oon isaga laftarkiisuna dhaqaaqi karayna wuxuu la halgamayey inuu Tommy dejiyo. markii uu waxba ka qaadan waayey, Mike wuxuu soo xasuusiyey Tommy wiilkiisii, taasi oo wuxuuga dhiirigelin asiis. waxaanu awooday inuu isku mudo irbad xanuunka aadka ah baabisa oo ay ciidanku jeebkooda ku qaataan. intaa kadib Tommy wuxuu isku dayey inuu gaadho raadiyoogiisii, balse xanuunkii ayaa mar kale aad uga sii daray. markuu arkay saaxiibkii oo xanuun saa'id ah ku jira, Mike wuxuu bilaabay inuu isku dayo inuu miinada lugta ka qaado si uu u caawiyo Tommy. Mike wuxuu malaawaashay in laga yaabo in miinada uu ku istaagay ay tahay mid duuga ah oo aan shaqaynin. Tommy wuxuu u sheegay inaanu arrintaas samayn. si uu Mike uga dhaadhiciyo inaanu dhaqaaqina, wuxuu la soo baxay baaskooladiisii, waxaanu ku qabtay madaxiisa. wuxuu Mike u sheegay si kastaba xaaladu ha ahaatee inay tahay inuu isagu badbaado. waanu istoogtay. Mike si aan caawimo lahayn oo aad u xun ayuu u qayliyey. wuxuu keligii ku xayirmay saxaraha isagoon awoodin inuu dhaqaaqo. wuxuu dhaqso ugu daalay inuu taagnaado, waxaanu ku fadhiistay jilibkiisa. Mike wuxuu xaqiiqsaday in si kastaba ha ahaatee uu soo qabsado raadiyo Tommy agtiisa yaalla oo dhowr tallaabo ka fog. wuxuu ku xidhay taxii kabihiisa faas uu watay si uu raadiyoga xaggiisa ugu soo dhaweeyo. si kastaba ha ahaatee wuxuu ogaaday in raadiyoga baytarigiisii uu dabku ka dhacay, baytarigiisii isbeerka ahana uu dul yaallo jidhka Tommy. Mike wuu niyad jabay, balse haddana wuxuu isku dayay qorshe kale. wuxuu isku dayay inuu si kumeel gaar ah jaajar ugu helo raadiyoga isagoo isticmaalaya tamarta cadeedda, waanay u suurta gashay. Mike-na intaa kadib wuxuu awooday inuu la xidhiidho taliyayaashiisii, waxaanu codsaday in si degdeg ah loo soo doono oo loo qaado. balse waxaa loo sheegay in diyaaradaha wax badbaadinaya aanay duuli karin halkaa uu joogo, iyadoo ay ugu wacan tahay duufaanada ciidda ah ee ka dhacaya. waxaa loo sheegay in haddii uu jawigu caadi noqdo ku dhawaad 52 saacadood kadib la badbaadin doono. Mike wuxuu ka argagaxay jawaabta. intaa kadib sarkaalkii wuxuu u soo jeediyey Mike inuu god qoto, intaa kadibna uu ku boodo. taasina waxay ku sababi lahayd
ahayd oo keliya inuu xubnihiisa muhiimka ah waayo. Mike wuxuu go'aansaday inuu sadkeeyo oo uu sugo inta badbaadadu u imanayso, isagoo saacadiisa ku buuxsanaya waqtiga uga hadhay badbaadada. Intaa kadib duufaan ciid wadata oo xoog badan ayaa ku dhufatay, waxaanu maareeyey inuu sugo intay dhaafayso isagoon halkiisii ka dhaqaaqin. Markii ay dhammaatay duufaantii, wixii ugu horreeyey ee uu arkay waxay ahayd jirkii Tommy oo ay duufaantii agtiisa keentay. waxaanu kaa galay biitarigii isbeerka ahaa oo ag yaaday. haddana wuxuu arkay raadiyoga laftarkiisii oo aad uga fogaaday oo aanu gaari karayn. saacado badan ayaa dhaafay, waxaanu Mike ka dhammaaday biyihii. waxaanu gaadhay xaalad quus ah, mararka qaarna wuxuu ku fikirayay inuu istilaba. wuxuu arkay nin ka mid ah dadkii meesha deganaa oo ku soo socda oo si sigsaag ah u socda. Mike wuxuu isku dayey inuu uga diga miinada, balse ninkii wuxuu ku dayday ficladii uu samaynayey Mike, isagoo u muuqanaya inuu ka maadsanayo. Mike wuxuu isku dayey inuu u sharaxo dhibaatadiisa ninkii, balse wuxuu ku adkaystay inuu Mike tallaabo qaado oo u dhaqaaqo. intaa kadib wuxuu ka qaaday Mike weelkii uu biyaha ku cabayey, waxaanu ku qarsoomay saxaraha. waxaa qabtay oonkii ugu xumaa, waxaanu noqday mid quus taagan. wuxuuna bilaabay inuu cabbo kaadidiisa. isagoo cabbaya ayaa waxa uu arkay inan yar oo ka mid ah dadkii meesha deganaa oo xaggiisa u soo socota, oo dib ugu soo qaaday weelkiisii uu biyaha ku cabayey. waxaanay u dhiibtay Mike. waxaanu ku farxay in biyo laga soo buuxiyey weelkii, oonkiina ka ba'ay. inkastoo inantii yarayd aanay wax hadal ah oran, haddana iyadoo isticmaalaysa baambaladeeda askarta ah, waxay u muuqatay inay Mike u sheegayso inuu ka dhaqaaqo miinada oo u socdo. Mike wuxuu u sheegay inaanu dhaqaaqi karayn. waxaanu weydiistay inantii yarayd inay u soo qabato raadiyoga, balse tayari way fahmi weyday, waanay ka dhaqaaqday. waxaa dhaqso u bilaabantay inuu habeenkii soo galo, heerkulkuna wuxuu bilaabay inuu hoos u dhaco. Mike wuxuu bilaabay inuu dab shito si uu u diiriyo naftiisa. wuxuu bilaabay inuu maqlo codadka xayawaanada duurjoogta ah. wuxuu la soo baxay mobilkiisii, waxaanu daawaday sawiradii saaxiibadii si uu naftiisa ugu mashquuliyo. wuxuu arkay fiideo ay ku jirto saaxiibadii. fiideoga dhexdiisana Jenny waxay u sheegaysaa Mike inay isaga sugayso. Mike waa inuu guulaysto dagaalka oo iyadana uu ugu soo noqdo sida ugu dhaqsaha badan leh. Mike wuxuu bilaabay inuu qiiroodo. wuxuu ka cabsaday inaanu noloshiisa mar dambe arag jacaylkiisa. wuxuu ka daalay wax kasta oo ku dhacaya, waxaanu bilaabay inuu seexdo, balse markiiba haddana wuxuu ku soo baraarugay isagoo dabkii u shidnaa uu ka damay. wuxuu is arkay isagoo ay xayawaano dad cunahay ay ku hareeraysan yihiin. waxaanu bilaabay inuu ku cabsiiyo baaskooladiisii, balse wuu ku guuldaraystay. xayawaanadii waxay jirteen jirkii Tommy. mid xayawaanadii ka mid ah ayaa bilaabay inuu xagga Mike u soo socdo, balse isagoo isticmaalaya iftiinka tooshkiisa. Mike wuxuu ku tugtay xayawaankii baaskooladiisii. xayawaankiina wuxuu ku dul dhacay miino, taasoo sababtay inuu qarax dhaco. xayawaankii kalena ay cabsadaan oo ay baxsadaan. subaxdii ayaa la gaadhay. ninkii meesha deganaana mar kale ayuu yimiday. wuxuu Mike u sheegay inuu nasiib badan yahay oo xataa miino uu ku dul istaagay iyo habeen uu saxaraha kula dhaxay xayawaanada cunahaba oo haddana badbaaday. mar kale wuxuu Mike u soo jeediyey inuu hore u soo dhaqaaqo, balse Mike kama yeelin. Mike wuxuu u sheegay inuu inta ugu badan garanayo meesha miinadu ay ku aasan tahay, maadaama uu badanaa si sigsaag ah u soconayo. ninkii wuxuu ugu jawaabay inaanu garanayn halka ay miinadu ku aasan tahay, sigsaagana uu ugu socdo oo keliya uun maadaama ay ka badbaado badan tahay inuu si toosa u socdo. Mike wuxuu mar kale weydiistay inuu raadiyoga u soo qabto. ninkiina wuxuu ugu dambeyn ku raacay inuu u soo qabto, waxaanu raadiyoga dib ugu soo celiyey Mike. intaa kadibna wuxuu dib ugu noqday waddadiisii. Mike wuxuu dib u eegay saacadiisii, waxaana weli uga hadhay 24 saacadood xilligii ay caawimadu imanaysay. wuxuu si aayar ah u bilaabay waxyaabo dhalanteed ah inuu istuso. Mike wuxuu arkay Tommy oo ka soo kaxay dhimashadii. Tommygii khiyaaliga ahaana wuxuu dhiirigeliyey Mike, waxaanu u sheegay in isagoo uu nool uu xaaladan ka bixi doono. cadceeddii ayaa mar kale dhacday. Mike-na wuxuu bilaabay inuu ku fikiro dhammaan khaladaadkii uu sameeyey noloshiisa. wuxuu bilaabay inuu qoomameeyo inuu cidlo kaga yimaado jacaylkiisii Jenny oo uu hawlgal ka yimaado. haddana wuxuu mar kale is arkay isagii oo ay xayawaanada cunahay ku hareeraysan yihiin. Mike wuxuu mugdiyey si aan kala sooc lahayn u tugtay jooyinkii ku hareeraysnaa, balse xayawaanadu markan kamay ordayn oo way soo weerarayeen. dhammaan wixii uu ka fikirayeyna wuu ilaabay intuu uu la dagaalamayey xayawaanada dadcunka ah. markii ay cadceeddu soo baxday, Mike wuxuu mar kale dib ugu soo noqday xaqiiqadii. dhammaan xayawaanadii soo weeraray waxay yaaleen hareerihiisa iyagoo dhintay. inkastoo ka tiro badnaayeen, haddana wuxuu naareeyey inuu dhammaantood laayo xayawaanada. Mike wuxuu joogay saxaraha isagoo keligii ah, agtiisana miinada ku dulhaya, isagoon dhaqaaqayn 45 saacadood ee ugu dambeeyey. intaa kadib wuxuu fariin ka helay taliyihiisii, kaasi oo ku wargeliyey in tiimkii badbaadinayay ay dib u habsaami doonaan. taliyihii wuxuu u sheegay inuu sugo 17 saacadood oo kale, isagoo halkii ugu dambaysay taagan oo ay ka dhammaatay. Mike wuxuu ugu jawaabay inaanu intaa ka badan sii dhaafi karin. taliyihiina wuxuu u sheegay inuu jiro qof rabaa inuu la hadlaa. intaa kadib Mike wuxuu maqlay codkii jacaylkiisa Jenny. Mike wuxuu bilaabay inuu si aad ah uga raalligeliyo jacaylkiisa tegistii uu ka soo tegey. wuxuu ugu calaalay inuu isagu wax kasta xumeeyey oo uu qasay. intaa kadib haddana Mike wuxuu bilaabay inuu sawirto waxyaabo dhalanteed ah. waxaanu arkay Jenny oo ku fadhida fadhi oo hortiisa joogta. wuxuu isku dayey inuu gaaro, balse awooddii ayaa ka tagtay. wuxuu bilaabay inuu kala dhaco, balse ninkii meesha deganaa ayaa kedis ugu soo baxay oo qabtay. ninkii wuxuu bilaabay inuu dhayo nabaradii Mike, waxaanu ugu warramay waqti uu isaguba ku dul istaagay miino, taasi oo uu agtiisa ku waayey. wuxuu Mike u sheegay inuu agtiisa waaya ay u ahayd oo kale inuu wax kasta oo noloshiisa ah waayey. si kastaba ha ahaatee, xanuunkii uu agtiisa kala kulmay waxaa dhammaantii ka meedhay markii uu la kulmay xaaskiisa ee uu inana dhalay. wuxuu u sheegay in wax kastaaba ay nagu dhacaan nolosheenna, haddana ay tahay inaynu hor u soconno. Mike wuxuu u sheegay ninkii inuu dhab ahaan yahay nin nasiib badan, maadaama uu dhalay inantii yarayd ee biyaha u keentay ayna tahay inan qurux badan oo leh dhoola caddaynta aabaheed oo kale. ninkii wuxuu u sheegay Mike in hadda wixii ka bilowda aanu inan lahayn, waxay ku dhimatay qarax miino kadib markii ay biyaha u keentay. Mike wuxuu dhegaysanayay isagoo si aad ah u argagaxay. ninkii wuxuu u sheegay inuu ku faraxsan yahay in gabadhiisu ay u timiday si ay ula kulanto Mike, balse hadda uu dhab ahaan u baahan yahay inuu dhaqaajiyo. intaa kadibna uu baxay. Mike wuxuu mar kale arkay inantii yarayd ee ninku dhalay, balse haddana dhaqsay u nabadhay.
mike wuxuu mar kale bilaabay inuu waxyaabo dhalanteed ah arko wuxuu arkay aabihii oo aad u xumaa oo hooyadii garaaci jiray isaguna uu daawan jiray isagoo waxba ka fadan karin wuxuu arkay hooyadii oo la ildaran xanuun aan dhaman lahayn sidoo kale wuxuu arkay waqtiyadii quruxda badnaa ee uu la qaadan jiray jacaylkiisa isla waqtigiiba wuxuu raadiyowga ka maqlay inay tiimkii badbaadadu ay soo baxayaan isagana ay uga baahan yihiin inuu u sheego meesha saxda ah ee uu joogo wuxuu soo qaaday ololkii tilmaamta ahaa balse ka hor intii aanu isticmaalin argagixisadii hore ayaa bilowday inay meel taag ah xabadi kaga soo ridaan xabadihiina waxay ku dhaceen mid ka mid ah minooyinkii agtaalay oo qaraxday taasi oo sababtay in ololkii uu cilka u ridayay ee uu mike gacanta ku hayay uu hortiisa kaga dhaco oo uu gacantiisa ka baxo wuxuu isku dayey inuu isna xabadi ku rido balse aad ayuu daciif u ahaa intaa kadib wuxuu xasuustay jacaylkiisii waxaanu u isticmaalay dhiirigelin ahaan mike wuxuu u isticmaalay baaskuuladiisii inuu ku rido minooyinkii agtiisa yaalay si uu u qarxiyo camuudda iyo qiiqa ka kacayaan ay ugu noqdaan gaashaan uu iskaga qariyo cadowga intaa kadib wuxuu si dhaqsaha u soo qabsaday ololkiisii waxaanu ka takhalusay argagixisadii iyagoo tiimkii badbaadadu ag maraya haddana weli ololkii u ridi lahaa si ay u arkaan gacmihiisa waa ka baxsan yahay uma gaari karo mike wuxuu xasuustay ninkii ereyadiisii oo ahaa inaad hore u socoto waxaanu go'aansaday inuu hore u dhaqaaqo intaa kadib tallaabo ayuu hore u qaaday waxbana maydheen wax qaraxoo dhacay ma jiraan wuxuu ogaaday in miinadii uu ku dul taagnaa ay dhab ahaan ahayd daasad yar oo ay macquul tahay inay halkaa dhigtay inantii yareyd ee ninkii dhalay markii ay noolayd ninkii hadalladiisii ayaana run noqday oo dhacay waqtigii oo dhan ninkii wuxuu u sheegayay inuu noloshiisa hore ugu dhaqaaqi karayo oo uu jacaylkiisana dib ugu noqon karayo wuxuu xasuusiyey inuu samayn karayo waxa keliya ee joojinayaana ay tahay cabsi mike wuxuu ku farxay oo uu ku nafisay inuu nool yahay inkastoo ku yaaleen dhaawacyo aan dilayni oo xabadii ka soo gaadhin waxaa ka soo daadatay ilmo layaab iyo qos wadata waxaa laga yaabaa inuu ku farxsanaa inuu ogaaday xaqiiqada ah in la badbaadin doono ama waxaa laga yaabaa inuu si cajab leh ugu qoslayay inuu xaqiiqsan waayey saxsanaanta waxa uu ku taagan yahay iyo xaaladiisa si kastaba ha ahaatee waxaa xaqiiqa ah in dhacdadani ay gebi ahaanba bedeli doonto noloshiisa aanay u noqon doonto cashar qiimo leh oo uu bartay intaa kadib wuxuu qarxiyey ololkii waxaana helay tiimkii badbaadada waxaana ku noqday waddankiisii markii uu noqday waxaa eeriboodka kusii sugaysay jacaylkiisii jeni waxaanay ku dhegtay iyadoo ilmo farxadeed ay dheheeda ka socoto xataa intii aanu habsayna wuxuu ku fadhiistay hal jilib siduu uu ugu fadhiyey marxalado kala duwan oo noloshiisa ahba intaa kadibna wuxuu u soo jeediyey guur isagoo u ballan qaadaya inaanu mar kale dib keligeed uga tegi doono filimkani halka ayuu ku dhammaaday fadlan haddii aad nagu cusub tahay sabscribe daado waa inuu dhiirigelin haddii aad muuqaalka ka heshayna like sar kana mid noqo asxaabta ku xidhan mahadsanid